weerar qaraxyo ku bilowday oo ururka al-shabaab ay ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir iyadoo in ka badan 7 qarax ay ku weerareen xarunta kadibna dabley hubaysan oo tiradooda lagu qiyaasay 5 xubnood ay gudaha u galeen xarunta uu maamulku ku shaqeynayay xilliga weerarku uu dhacay waxaa xarunta ku sugnaa shaqaale aad u tiro badan madax sarsare iyo waliba dad shacab ah oo markaasi hawlo ka dhamaysanaya xarunta waxay ahayd xilli aad u saxmad badan balse ururka al-shabaab ayaana xubnahoodu waxaa wali ay ku sugan yihiin gudaha xarunta ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaana loo xilsaaray inay soo afjaraan waxaana si hordhac loo shaaciyay in 5 xubnood ee ka tirsanayd xarakada al-shabaab ee gudaha xarunta u soo gashay mid kamid ah uu isku qarxiyay afaafka hore ee xarunta laga soo galay oo markaasi ay ku sugnaayeen saraakiil iyo waliba mas'uuliyiin sarsare halka laba kamidana ay toogteen ciidamadii ilaalada ee ku sugnaa xarunta maamulka gobolka banaadir laba kamid ah ayaana wali ka dagaalamaya gudaha xarunta hubka noocyadiisa kala duwan iyo waliba bambaanooyinka gamcaha laga tuuro ayayna ku dagaalamayaan goobtan hadda uu weerarku ka socdo ee xarunta gobolka banaadir ayaa ah goob istiraatiiji isla markaana ay u dhow yihiin wasaarado badan oo ay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waana goob si weyn loo ilaaliyo jidadka dhammaan soo galana ay ku yaalaan baro control oo ay ku sugan yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ee nisa iyo waliba laamaha amniga qaybahooda kala duwan shacabka Soomaaliyeed ayaa durbe isweydiinaya sababta goobaha mas'uuliyiintu ay ku sugan yihiin iyo waliba wasaaradaha sida weyn loo ilaaliyo ay ururka al-shabaab mar waliba ay weerar ugu qaadaan iyadoo horey loo xusuusto weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay xayndaabka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya dhanka kaleeto khasaaraha rasmiga ee meesha ka dhacay sida hordhaca ee loo shaaciyay iyo sidoo kaleeto goobta mas'uuliyiinta ku sugnaa waxaanu su'aalo ka weydiin doonaa saaxiibkay Wacane oo soo indheeyay xaaladaha meeshaasi ka socda iyo weerarkan bahalnimada ee ururka al-shabaab ay ku qaadeen goobtii shacabkii Soomaaliyeed ugu adeegayay waxaanu soo dhow aad iyo aad baad mahadsantahay Santiago weerar bahalnimo ay ururka al-shabaab ku soo qaadeen xarunta gobolka banaadir kaasi oo ay ku sugnaayeen qaar kamid ah shaqaalaha markaasi ka shaqeeya xarunta gobolka banaadir iyo waliba sidoo kale qaar kamid ah mas'uuliyiintii ugu sareysay gobolkaasi oo ugu jira gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir sidoo kalena waxa halkaasi ku sugnaa qaar kamid ah taliyaasha markaasi ugu sareeya ciidanka sida gaarka u tababaran qaybtiisa gobolka banaadir sidoo kale goobtaasi waxa ku sugnaa agaasimayaal iyo waliba sidoo kale مسؤولين سرسروا مركزي كاترسن دولة الفدرال كصوماليا حلقة ورك ودعي وحي هيد حلي مركزي سحمد أي مركزي مشغول ماشو أي تاي وأنا حلقة شقة أن أي أو بدن أي قبطان مسؤولين تا قبل كبنادر وركن أيانا كوب لوضي قرحيو آد أترى بدن كواسي وضد كقار أي شيئين إني جاريين إلا يتضبط قرح ومركزي قيب تضمبه حرونتا قبل كبنادر أي أورك الشباب كسو قليين لبق جاري ومركزي كبوحي والحا قرحة كدبنا أي صاقلين رق مركزي كوه بيسان سومانka qarxa iyo waliba jaakadaha qarxa dhinaca kalena waxa la sheegayaa in dadka haatan ka dagaalamaya gudaha xarunta ay gaariyaan ilaa 5 qof walow ciidamada sida gaarka u tababaran Haramcad ay xaqajiyeen inuu mid kamid ah 5 xubnood ee ka tirsan ururka al-shabaab isku qarxiyay mas'uuliyiin iyo waliba sidoo kale agaasimayaal goob ay ku sugan yihiin lamana xaqajin karo tirada rasmiga ah halkaasi ku dhimatay ayadoo ay sheegeen laba kamidana in ay ku doogteen gudaha xarunta waxa haatan gudaha ka dagaalamay sida ay sheegeen laba kamid ah ururka al-shabaab ee markaasi weerarka ku soo qaaday ama kooxdii weerarka ku soo qaaday xarunta markaasi ay ku shaqeyso gobolka banaadir sidoo kale Santiago waxa ayadana su'aalo badan ay ka dhalanaysaa sababta markaasi ururkan ay u fududaatay inay gabi ahaanba soo galaan xayndaabka xarunta gobolka banaadir oo ah meel aad loo ilaaliyo sidoo kalena ay ku sugnaayeen ciidamada aad u tiro badan oo markaasi qaabilsan amniga iyo waliba sidoo kale xasiloonida ama markaasi ilaalintaba goobaha sida weyn markaasi loogu adeego bulshada kala duwan ee gobolka banaadir guud ahaanba ee bulshada Soomaaliyeed waatay qaab noocee ayay ururkan shabaab u soo weerareen xarunta adoo noo soo koobaya xageysa ka soo galeen maadaama meesha la ogsoon yahay ay ahayd meel si weyn loo ilaaliyo oo jidadka soo galo dhammaan ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ahba baaritaan lagu sameeyo dadka xataa soo galahaya bal si qaab noocee ah ayay ururka al-shabaab ugu suura gashay inay u soo gudbaan goobtii mas'uuliyiintu ay ku shaqeynayeen Santiago horta ururka al-shabaab ma aha biriq ama ma aha maxalli jiray jin ma aha waa dad bini aadana oo dadka kaleeta waxay wataan gawaari kuwa ciidanka kaleeta maalmihii ugu dambeysay waxaan ogeyn in ay jireen digniino la xiriira in ururka al-shabaab isku soo ekaysiinayaan ama gawaaridooda u soo ekaysiinayaan kuwa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taasi ayaana sababtay in gabi ahaanba ururka al-shabaab ay u fududaato galitaanka xarunta gobolka banaadir intii gawaari ee loo soo ekeysiyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa isticmaalaan markaas oo ka soo buuxiyeen walxaha qarxa ayayna
qaybta dambe ee gobolka banaadir derbidiisa gebi ahaanba ay markaasi kasoo galeen halkaasi ayayna laba gaari oo walxaa qarxay ka buuxiyeen ay la beegteen kadibna gaariga saddexaad waxay sheegeen inuu ku qarxay gudaha markaasi xarunta iyadoo weliba kadibna ururka al-shabaab ay haatan ka dagaalamayaanba gudaha xarunta gobolka banaadir waxaa dadka shacabka soomaaliyeed wax iska weydiinayaan goobtan waa goob aad loo ilaaliyo maxay tahay waxa sababi kara inay ururka al-shabaab halkaasi gaadhaan sidoo kaleetana ay weerar ka fuliyaan waana waxaad su-aalahaasi iyo kuwa lamidana horey la iskaga weydiinaya weerarkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen bishii aynu soo dhaafnay xayndaabka madaxtooyada villa soomaaliya kaasi oon ogeyn in ay 32 saacadood ay koox yar oo ka tirsan ururka al-shabaab ay ka dagaalamayeen halkaasi kadibna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa haramcad ay gebi ahaanba soo afjareen maxay tahay sababta looga hortegi laaya ay dadka soomaaliyeedna ay iska weydiinayaan walow ilaa iyo xilligan haatan weerarku u socdo ilaa iyo xilligan aan la soo gabagabaynin oo ciidamada sida gaarka u tababaranay haramcad ay haatan ku sugan yihiin ayna isku dayayaan sidii gebi ahaanba ay ku soo afjari lahaayeen dableyda hubaysan ee markaasi ka dagaalamaysa gudaha xarunta haddana waxaa jiro markaasi khasaare baahsan oo ka jiro gudaha xarunta dad badan ayaa halkaasi ku dhammaaday xilligii halkaasi weerarku dhacaysa hore kugu sheegayna waxaa ku sugnaa dad aad u tiro badan oo soomaaliyeed oo markaasi ka dhamaysanayay waxyaaba ayaga u gooniya oo markaasi dowladda gobolka banaadir ay markaasi usoo raadsadeen wahagaag dhinaca kaleeto goobta xarunta ay ku taallo waa goob ay u dhow yihiin wasaaradaha sida wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale dowladda federaalk ee soomaaliya mar haddiiba xaruntii gobolka la gelahayo wasaaradahan kale ee sida maaliyadda iyo waxbarashada iyo dhammaan wasaaradahan kale ee ku xeeran meesha sidee xaalkoodu noqonaya mas-uuliyiinta ku shaqaysiya wasiirada dabcan waxaan ognahay santaagow in khatarta ka imaan karta ururka al-shabaab ee weerara ay ku qaadi karaan xarumaha dowladda iyo weliba sidoo kaleeto goobaha mashquulka ah in maalmihii ugu dambeysay digniinahoodu ay aad u soo badanayeen waxaan ogeyn maraykanka iyo weliba waddanka turkiga oo ciidamo badan ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya inay marar badan kusoo celceliyeen inay jiraan digniino noocani oo kaleeto ururka al-shabaab ay weerar kusoo qaadi karaan ayadoo weliba aan ogeyn in safaaradda waddanka turkiga la keenay ciidamo si gaara u tababaran oo ay ka keensadeen waddanka turkiga iyo sidoo kaleeto wadamadooda ay ka keensadeen si kastaba digniinahan laamaha amniga way qabeen dhammaanna waa la feejignaa waxaan ognahay ciidamo aad u tiro badan oo la magac baxay duufaan oo si gaara uga amar qaato taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa in meel walba la geeyey si kastaba haddana waxaad moodaa wixii laga digayey ee shacbiga soomaaliya looga digayey ee bulshada looga digayey ee dowladda looga digayey inuu weli uu ka dhacayo gudaha magaalada muqdisho taasina dabcan su-aalo ayaa la iska weydiin doonaa iyadoo weliba ay jiraan qaraxyadii hore iyo weeraradii hore noocani oo kaleetaha ilaa iyo xilligan in wax jawaaba oo kasoo baxday ama wax dadoo loo xidhay gebi ahaanba aysan jirin ciidamada sida gaarka u tababaranay haramcad waxaa u hadlay afhayeen waxaana uu sheegay in ay saacado kooban ku qaadan doonin dableyda hubaysan ee ku jirto gudaha markaasi xarunta walow si hordhaca haatan loo shaaciyey taliyihii yani saldhigga xamar weyne inuu gebi ahaanba halkaasi ku dhaawacmay laakiin haddana waxaa jirto khasaare aad u tiro badan oo markaasi iskugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo dib aan uga soo sheegi doono bulshada soomaaliya si kastaba ha noqotee weerarkan oo qaraxyo ku bilowda ururka al-shabaab ay si habsamile u soo agaasimeen ayay qaybta dambe ee xarunta maamulka gobolka banaadir ay ku weerareen iyagoo markii ugu horreysay laba gaadhi oo waxyaabaha qarxa ay ku dhufteen derbida xarunta kadibna gaadhi kale oo waxyaabaha qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku qarxiyeen goob ay ku tumeeyeen inay mas-uuliyiinta gobolka banaadir ay ku sugan yihiin xilliga qaraxyadani ay dhacahayeen waxaa xarunta ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka guud ee gobolka banaadir saraakiil sare iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiin kale oo markaasi iyagu aan si la shaacinin magacyadooda qaraxyadaasi kadib 5 nin oo markaasi dabley hubaysana oo xarakada al-shabaab ka tirsan ayaana xarunta gudaha u soo galay iyadoo mid ka mid ah oo isagana isku qarxiyay afaafka hore ee guri markaasi ay shaqaaluhu ku shaqaynayeen halka laba ka midana ay toogteen ciidamadii ilaalada oo ka warhelay jugta iyo weliba qaraxa xoogan ee ururka al-shabaab ay ku dhufteen derbida laba ka mid ah ayaana weli la bixinayahay oo ka dhex dagaalamaya xarunta maamulka gobolka banaadir xaruntan maamulka gobolka banaadir waxaa sanado ka hor si habsamira loo dhisay la hagaajiyey oo la qalabeeyey xaruntuna waa xarun aad u weyn ma aha guri iyo labo balse ururka al-shabaab saacado kooban ayay ka dhex dagaalami doonaan siday dadka goobjoogaasha noo xaqiijin karaan ugu dambeynna waa uu la soo afjari doonaa iyadoo ciidamada sida gaarka u tababaranaya haramcad lagu wareejiyey howlgalkani inay soo afjaraan khasaaraha dhimasho mas-uuliyiintii shacabkii shaqaalihii iyo dadkii meesha ku sugnaa weli lama xaqiijinin dowladda federaalkuna weli kama aysan hadlin waxaa lagu howlan yahay sidii loo soo afjari lahaa
dagaalyahanadan argagixisada ee ka dagaalamaya gudaha xarunta. daawadayaal wixii ka soo kordho wararkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa ammaano Allah.